بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. waxaan rajaynayaa inay noqoto muxaadaradii sagaalaad oo aan isku dayayo inaan ku gebagabayno darsiga kan. waxaynu joognay ciidamadii muslimiinta oo soo gudbay oo yimi dhulka Falastiin. waxaanu isticmaalay Quds khita ama khutta ay leeyihiin waa ku cusub tahay qaab dagaaleedkii wakhtigaasi socday. wuxuu isticmaalay inuu geeshka ama ciidankiisa u sameeyo muqadama ama koox hore oo ka fog ciidan weynaha muslimiinta. kooxdaasi wuxuu ka dhigay koox badan. awal talaa'icda ama muqadamada ciidanku dad yar bay ahaan jireen. wuxuu ka dhigay ciidan aada u tiro badan. isla markaa ciddii ay la kulmaan waxa ay u qaadanaysaa in ciidankii oo dhami kan yahay oon waxba ka dambaynin. ciidankaa koowaad wuxuu u dhiibay markaasi ciidamadii masar wakhtigaa joogay qaa'idkii ugu caansanaa, ninkii bibros la yidhaahdo, oo ah markaa qaa'id muxannaka, dagaaladii qudus lagu xoraynayo hore ka qayb galay iyo kuwii crusadeska la iskaga celinayeyba. yacni nin 10 sannadood dagaalku soo jiraya. soo ciidamadiisa wato markaa Falastiin wuxuu soo galay baa la yidhaahdaa July 26 1260 miilaadiga, waqti ku beegan. xuduudda markuu ka soo tallaabay waxaa ka soo daba tallaabay isnoo ciidan weynihii muslimiinta wata Quds oo ah madaxweynihii mamlakada muslimiinta ah. isagaa wata ciidamada laftoodii oo isna hogaaminaya. sidii la filayey, tataarkii markii ay la kulmeen meesha Gaza la yidhaahdo, tataar baa haystay, laakiin xaamiyo yar muslimiinta inta laga adkaaday baa meel walba koox yar la dhigaa. kooxdaasaa ka taliso aan cidina ku dhicin. ciidankan muslimiinta ee soo tallaabay laakiin waxay u qaateen inuu yahay intan bibros wato oo qura, inaan ciidankana ka dambaynin. cusub runtii bibros, laakiin nin qaa'idoo muxanak u ahaa. kooxdii Gaza joogtay fii khilaali suwaycaatin buu iyaga ku kacay, waa ka takhallusay. awal nasr Gazo qabsaday. waxaa soo noolaatay yididiile cusub oo sheegaysa muslim baa wax jabin kara, waayo muddo 40 sano ku dhodhow muslim sii ordaya mooyaane muslim soo socda lama arag. marka kan Gaza buu qabsaday. kadib waxaa ka soo daba tallaabay ciidan weynihii muslimiinta oo Quds hogaaminayo. waqooyiga Falastiin bay u soo kaceen. magaaladan Casqalaan la yidhaahday yimaadeen. Yaava ayay si tallaabeen. Tolkaran bay dhinaca galbeed ka mareen. Xayfa ayay mareen. Caka ayay tageen. Caka waa imaaradii ugu xooganayd ee masiixiyiintu markaa haysteen, ee uu heshiisyada hore ula galay. mar labaad buu heshiisyadii cusboonaysiiyey. ciidamo u diray iyo dad waa la wada hadlay, way soo noqdeen. ciidamadiisii qaar ka mid ah waxay u sheegeen, caki maanta sidii waayadii hore uma xoogane ma ku kicinaa. Quds wuxuu yidhi naxnu laa nukhuna alcuhuud, ballamada ma burino. ballan baanu la gallay, haddaana iyagu burin ballanka ma burinayo. sidii ballanka uu hore ula galay ayuu kula heshiiyey. dabeetana waa ka soo tallaaba.
warkii wuxuu soo gaadhay katbuqa nuwayn ninkii la odhan jiray. katbuqa waa ninka haysta markaa ciidamada shaam degan ee mongolianiska ah, waxaanu isagu qaatay diinta kiristanka oo waa kiristan marka kale. markuu maqlay ciidamadaadii ghaza joogay waa la jebiyey, waabuu cadhooday. dabeetana wuxuu isugu yeedhay madaxda u imanaysa waxaa ka mid ah al-Ashraf al-Ayubi, kii ximis haystay. wuu la shiray, go-aan baa la qaatay in la socdo. koonfurta lebnaan buu u soo dhaqaaqay, waqooyiga falastiin buu soo galay, nahru urdun buu ka soo tallaabay, aljaliil sharqiya buu yimi. qutusna warkii ciidamadiisa sirdoonkii waa soo gaadhsiiyeen. waxaa loo sheegay inuu ninkii halkaa marayo. qutus wuxuu go-aan qaatay inuu ka horeeyo si goobta dagaalka uu ka dhici doono isagu uu go-aamiyo. wuu ka soo horguuray, madiinatu naasira buu soo dhaafay, wuxuu yimi meesha loo yaqaano caynu jaaluud. caynu jaaluud dhul ahaan waa meel bannaan oo waasica oo buuro yari hareeraha kaga soo wareegsan yihiin, oo hal albaaboo quro laga galo leh, oo buuraha dushooduna kayn ay tahay. marka waa bannaan hareeraha ka xidhan oo buuro iyo kayn dul saaran ay hareeraha kaga xigan yihiin, xagga waqooyina ka bannaan. wuxuu qaatay markaasi go-aan ah waa mowqica goobtan inuu dagaalku ka dhaco. goobtani waxaa la yidhahdaa mawaaqic taariikhiya u dhowday. xatiin tii uu jebiyey crusadeska sheekhii la odhan jiray salaaxuddiin al-ayuub 65 kilomitir bay u jirtaa. waaqacadii saxaabadu gashay ee yarmuukna 60 kilomitir bay dhanka galbeed ka xigtaa. waa meesha bannaan ee noocaasiya. ciidankiisa qaab buu u saleeyey ah muqadamadii uu watay bebros iyo ciidankiisa dhammaantood wuu qariyey. waxaa lagu qariyey kaymahan ku wareegsan buuralaydatan. saaxadii dhexana waa bannaan tahay. ciidamadii ay wateen tataarku markii ay soo gaadheen afkii hore ee meesha ayaa waxaa amar la siiyey oo ciidamaday halkaa marayaan. dhanka kale markaynu dib ugu noqonno tataarka, dowladdii weyneyd ee tataarka, waxaa dhintay ninkii hoolakay walaalahayn madaxweyne ahaa ee manko khan la odhan jiray. dabeetana laba kale ay hoolaka walaalayiin oo ariiq bokaan nin la yidhaahdo iyo qablay baa isdilay oo madaxnimadii isku dilay. nin isagu islaamay oo barka khan la yidhaahdo oo ina joojiya jinkis khan baa awowsna u ah oo meesha ka odayaynayaana wuxuu raacay ariiqa buka. hoolaakana wuxuu rabay labadiisa walaal qablay inuu meesha qabsado. hoolaaka ciidamadii qayb ka miduu shaam dib ugula ayuu shaam kala noqday oo tabriis buu dib ugu laabtay. ninkanna wuxuu kaga tegey meesha. katabqa iyo ciidankiisiiyo soconayaa meesha soo degay. katbuqa bay u akhriyaan be. katbuqa ninkan la yidhaahdo waa nin aada u kibirsan. dhan marka laga eego waa rugcaddaa dagaalyahana. ninkani nin da-yar maaha, waa nin ugu yaraan 60 dhaafay. waa nin 40 sano ku dhowaad dagaal ku jiray. jinkis khan ciidamadii la soo bilaabay buu ka mid yahay. jinkis khanna wakhtigan hadda la joogo ee caynu jaaluut ay dhacaysa 34 sano ka hor buu dhintay. 34 sano ka hor ninka dhintay buu dagaalada kula jiray. danminis waa nin 40 sano ku dhowaad janan goob dagaalee taagnaa weeyaan. waa khabiir yacni caskariya. laakiin markan isla weyni baa haysa oo dee weligii lama jebin
ومن هشت مسلم با وحسك علين كربا وحكى عريسين غزة دي لغا صوت اللابي دبتنا يسوقوا عريسين بميشي يمي halkuu soo degay muslimiintii reer miyiga ahayd iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka deganeed iyo shacabka ahayd markay ogaadeen Quds inuu dagaalku ka dhab yahay ciidamo fiican oo wada dagaalamayana waa la wada xamaasadooday baadiyaha iyo dhulka oo dhan baa laga soo kacay waa la soo raacay waa kula jihaatamayna baa la yiri dadkani waagii hore xaqay ku maqnaayeen markay kooxda yar tataarkii intay dhex bartay la Gaza haysatay qudwa iyo imaam iyo cid ay ku daydaan baanay haysanin cid hogaamisanaysan shacab iska faramaran bay haayeen markan see qudwa ay arkaan cid ay raaci karaan baa u muuqata waa la wada daba galay Quds marka dadkii muslimiinta u yimi ee beeraley iyo reer miyiga iska wuxuu arkayaa inaanay ahayn dad askarinimo u tababaran waqtigeena waqti uu tababar ka gaarsiin kara maaha dadkii oo dhan wuu qaatay laakiin wuxuu aqbalay ciidamadiisa oo dhan inuu u tafriiqiyo ama ugu tala galo dagaalka iyo frontka inay galaan dadka kanina wixii logistics-ka inay iyagu ka shaqeeyaan oo dadkani hadday kuug noqoto hadday hubka safayntiisa noqoto hadday dadka buka iyo dadka dhaawacma noqoto wixii shaqo gacmeed ee la dirayay hadday fardaha iyo soo daajinteeda noqoto hadday fardaha iyo geedasiinteeda noqoto biyo keenis noqoto wixii shaqo ee kale ayuu u xil saaray inay qabtaan ciidanku dhammaantiina inuu u baxo dagaalka keligii inuu galo iyo asawaadi lacdab tirada inay badiyaan oo meesha marka ciidan yari ka muuqdo iyo marka dhulkuba soo madoobaado waa dagaal nafsiya xarbi nafsiya bay ku haynaysaa cid ka soo horjeeda inta waxa ka weyn oo uu diray silaaxi dhabta ahaa oo ah inay rabbi tuugaan oo baryaan dumarkii iyo caruurtii iyo wixii wardiga loo hayo oo rabbi loo baryo subxaanahu wa tacaala dagaalkii isagoo halkaa ciidamadii isu safteen ay marayso ciidamadii muslimiintuna wali ay qarsoon yihiin oo aanu arkaynin ninkii la odhan jiray katbuqa ayaa cid marka ilaahay jabinayo ilaahay baa wasaa'ishi hagaajiya nin ordayuun baa u yimi muslimiintii wuxuu yidhi waxaan ka socdaa saarimudiin aybak baa isoo diray saarimudiin aybak waa muslimiintii shaam lagu qabsaday ee dabeetana khidmada ka qayb gashay gaalada soo raacday miyaa la qasbay mise can tawcan buu soo raacay allahu aclam oo markaas ka tirsan ciidamada war buu soo dhiibay ninkan sira uu faafinayo muslimiinta u gudbinayo wuxuu ku yidhi u tag ninka Quds la yidhaahdo waxaad ku tidhaahdaa waxay soo diray saarimudiin aybak waxaad u sheegtaa marka koowaad ciidanka tataarku xoogii laga biqi jiray ma laha waayo wuxuu ogyahay in hoolaaka qayb badan dib ula noqday midka horta ogaada buu yidhi taasi macnawiyaadkii dadka kor bay u qaaday tataarkii la yaqaanay inuu ka liito qodobka labaad buu yidhi al-Ashraf al-Ayyubi amiiru Xams oo markii hore soo raacay tataarka dib uu malaa isu canaanto wuxuu go'aansaday dagaalku markuu dhaco inuu jabiyo tataarka oo uu cararo ciidanka qaybtayada waanu la fuqaynaaye taana ku soo tala gala bay yidhaahdeen qodobka saddexaad wuxuu yidhi tarkiibada ciidanka uu wato katbuqa maymanadiisa xoog badan ciidankii garabkiisa midig baa ka xoog badan garabka bidix saa daraaddeed garabka midig iska ilaaliya Quds umaradiisii buu u yeedhay maxay idin la tahay bay yidhaahdeen waxay yidhahdeen garan mayna inay tahay khudca iyo inay dhabtay taktiik inaga laynagu jabinayo inay tahay iyo inay run tahay garan mayno digtoonideennana waa qaadanaynaa sideennina waa ku soconaynaa laakiin ma garan karno ninka kani gaalka ka yimi inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo waa 24 Ramadaan 658 hijriyada habeenkaa wixii la tukan karayaa la tukaday waa la ducaystay subaxii 25aad ee Ramadaan ayaa waagu bariyay markaasaa amar wuxuu siiyey Quds
inuu ciidanku hogaaminayo Bebros ee muqaddamadaha ay soo dhaadhacaan buuraleyda iyo way soo muujiyeen laakiin dagaalku waa xarb nafsiya psychologically baa la isu jabiyaa ciidanku mar ma soo wada dhaadhicin ee katiiba hurin iyo unugunug baa loo soo daayay hurintii iyo unugunuga loo soo daayay ciidamada rasmiga ah ee wato Qutus zayigooda kala nooca katiibaba dhar nooca midab nooca fardan nooca hub noocay sidata dabeetana kolba hurin baa soo daadegta midab gaara leh katabqa waa yaabay katbuqa waxaan soo socday kala wada nooca dabeetana Saarimudiinkii warka soo faafinayo la socda Saarimudiin baa warramayo wuxuu leeyahay cadceedu markii ay soo baxday ayay soo muuqdeen ciidamadii muslimiintuna kooxdii ugu soo horeysay buu yidhi waxay ahaayeen koox midab casaana iyo caddaana wata midab guduuda iyo caddaan bay sitaan hubkuna waa u dhan yahay waana qurxa badan yihiin buu yidhi waxaad moodaa inay card askariya marayaan yani in askartu markan ay damaashaadaysa dabaaldega ku jirto kale in la marayo raga waa soo dhaadhacay Saarimudiin wuxuu leeyahay wuu yaabay katbuqa markuu arkay ciidamada nooca kana waayo wuxuu yaqaanay ciidan muslimiin oo saddex midoona qalcada ku jiro dhufayska wax ka soo tuurtuura ama marka la isarka carara ama isa soo dhiiba laakiin muslim feedhaha soo dhigto midab leh hore uma arag waxay yidhaahdaan Saarimudiin aybak baa wuxuu yidhi katbuqa baa wuxuu igu yidhi runk man haadihi runk waa kelima farisiya bay yidhaahdaan oo lownka ah midabkan yaa wata buu leeyahay ciidankani waa kuma waa ciidama yani firqadihii uu watay ama guutooyinkii ka socday muslimiintu calaamado kale noocile waa guutadii kuma ayuu weydiiyey wuxuu yidhi guutada tani waa guuto wato sanqar الرومي وأحد أمراء المماليك البحرية هور الرق خطر سنويان سو عرري الشام يمد بلو سو عليي وكان الندوة وين عيدا كميدا مر لباد با waxa soo baxay buuri ka soo daadega hadana qolo guul sidata dar yalawa safar midab hurdiya dhar leh qolo sidata soo dhaadhacday hadana mar labaad buu weydiiyo ciidamadani waa ayabu yiri ciidankanna waa biliban الرشيد isna waa mamaaliktii baxriga nin ka tirsan waa qoladii shaam ka soo noqotay isaguna waa jaran isna magacaale buu yiri Saarimudiin ay ku xulay ciidamadii muslimiinta kolba guuta cusub baaba soo dhaadhacda oo midab cusub leh sidii weydiinay markii dambe anaaba kala garan waayo anna magacyaan u samaystay buu yiri kana waa guutadii hebel uma iska idhaahdaa buu yiri marka guuta soo dhaadhacdaba xumaan sheegaa buu yiri guutadii soo dhaadhacdaba magac buu bixiyay markii Bebros iyo ciidankiisa ay yimaadeen banaankii ciidamada muslimiinta marka kan waxa lagu dalbanayaa muusigo la garaacayo qalab durbaanadan iyo waxaan la garaacayo qalabkan iyo durbaanadan qaabka loo garaacaya waxay sheegayaan dagaalka qaabka loo galayo inaad weerarayso inaad sugayso inaad dib u guranayso inaad hore u soconayso inaad midigta xoojinayso inaad bidixda xoojinayso waxaas oo dhammi war uma baahna waxay u baahan tahay kooxda baamboyda dambe muusiga say u garaacdaa waxay sheegaysaa qaabkaad u dagaalgalayso waxa loo garaacay markaasi muusigii ah dhaadhaca dagaalka hore u socda waa soo dhaadhaceen ciidanka dhammaantii Qutus baa maamula janankiisan koowaadna awaamirta muusiga dambu ka siinaya katabqaana waaba cadhaysan iyo waxay ugu muuqatay katbuqa inuu degdeg dagaalka u dhameeyo dabeetana bikaamili geeshihii buu ku soo galay dagaalka ciidamadii tataarka iyo kuwii muslimiinta isku soo dhawaaday muusigadii iyo wixii baa dhacay
labada nin ee ciidamada kala hogaaminaya waa laba nin oo khabiir ah kana waxaan diray 40 sano dagaal ku soo jiray kanina ilaa dhowr iyo 40 bisba ku soo jira waa laba nin oo rogacdaaya dagaalkii wuu bilaabma iyadoo tataarku xooggoodii oo dhan ay adeegsanayaan muslimiintu dagaalka waxay ku tala galeen khudo saddex ba la soo siiyay Pepris inuu ku dagaal galo ta koowaad inuu dagaalka bilaabo laakiin aanu xoog hore u socon ee nimanka in la daaliyo una inuu daaliyo ciidanka kan ayuu isagu dagaalka u soo galay muddo markay socotay oo tataarkiina xooggoodii oo dhan dagaalka soo galay ayaa muusigii dib loogu garaacay waxa la amrayaa inuu dib u gurasho sameeyo dagaal seefeed oo socda inaad dib u gurato khito fudud maaha waxay yidhaahdaan taariikhyahanada qaarkood waa dagaalkii bershiya dagaalkoodii ugu weynaa ee ugu dambeeyay waa qaabkay saxaabadu ku jabiyeen waa qaabku u dagaal galay ciidanku hogaaminayay nucmaan ibnu muqarrin saxaabigii la odhan jiray muqaddamadiisa halka bebrasna waxaa ugu jiray saxaabigii la odhan jiray alqacqaac ibnu camar atamimiy alqacqaac waa dagaalyahanadii muslimiinta taariikhdaba ugu weynaayo soo mara isagiyo khaalid labadan saxaabi dagaalkay hogaaminayeen halkan qutus iyo bibros oo kale isticmaalayeen khudada dagaalkaasi waxay ahayd in la galo muqaddamadu ay dagaalka gasho ay u beenguurto soo jabto meel khatara markay ciidamada kale soo wada galaan kuwa kale muslimiintuna hareeraha inay kaga yimaadaan oo saasi dagaalkii bershiya loogu dhameeyey waqaabku u dhacay nafsu shaakila buu damcay qutus inuu ka faa'iidaysto marka waxa la faray bibros inuu dagaalka hore u qaado markay ciidanka uu bahalkoo dhammi soo galaan inuu dib u gurto waa se khatar dib u gurashada haddii lagu raaciyo lagaa dulboodo khatarteeday leedahay adoo dagaalamay inaad dana dib u socotaa tiibuu dib ugu guulaystay wuu u socday maxaa la rabaa waxaa la rabaa ciidanka tataarkoo dhan in la soo geliyo bartan bannaan oo afkii yaraaye hore la isku haystaa dabeetana dib siduu ugu guranayo ciidanka tataarkao dhan waxay soo gelayaan ishan bannaan ayaa la isku haleelayaa bebris khitadii wuu fuliyey dib buu soo gurtay waa khita runtii u baahan ciidamo maahiriina oo farsamo yaqaana oo rugcadaaya waa ku guulaysteen iyagoo aan jabin haddana inay dib u gartaan oo tataarka oo dhammi intan bannaan soo galo halkaa markay maraysay ayuu amar bixiyey qutus in la garaaco muusigadii oo ah ciidamada muslimiinta ah inay dhaadhacaan ee dabadda joogay intani muqaddamadii qura bay ahayd buurahan ku weegaaran meeshay saaran yihiin dabeetana waxaa la soo dhaadhiciyey wixii ciidamo dabadda saarnaa intoodii ugu badnayd tataarkii waxaa ku soo baxay wax cusub awal waxay islahaayeen inta tan canka geliya xooggoodii oo dhan intan bay ku isticmaaleen ciidamo ixtiyaad iyo meel may dhiganin iyagu dhammaantood dagaalka way ku jiraan laakiin ninkan daaliyey waa kooxdii muqaddamada wadato qura ninkii ahaa waxaa soo dhaadhacay markaa ciidamadii muslimiinta ah oo dhan weliba wuxuu soo diray koox iyadu waddada xidha halkii la iska soo riixee koowaad iyadu xidha meeshii waa la awda dagaalku marka kan wuu isbedelay tataarkaa wax riixayey muslimiintiina meeshay ku soo weegaarmeen labada kooxood kooxun baa hadda la waayaya waayo kooxda gudaha ku jirta dagaalkoodu maaha haziimo iyo nasri maaha ciidanku markuu ku dagaalamayo ama guulayso ama jab iyo markay tahay nolol iyo geeri bes waayo ninkan dhan walba waa laga xigaa inuu dhinto iyo inuu noolaado wax ka dhexeeya ma jiro ciidanka tataarkii waxay arkeen albaabkii dambena inuu oodan yahay waxay go'aansadeen markaa dagaalkama dambaysa inay dagaalamaan waxay dagaalameen dagaal aad u xooggan sidii uu saarimudiin aybak uu sheegayey maymanadii tataarku way la soo kacday maysaradii muslimiinta rag xoog badan bay ahayn waa soo kiciyeen qutusoo weli dusha ka daawanaya ayaa wuxuu arkay maysaradiisii oo lala soo kacay dabeetana ciidanka inuu ku xoojiyey
waa lala soo kacay marka lala soo kacay waxay ku dhawaatay inay waqacadu isbedesho oo ah tataarku dhankan haday soo jeebiyaan inay iyagu dusha wada maraan oo muslimiintu gudaha gasho oo khutadii muslimiintu ay dejisay iyaga inay dib ugu noqoto Quds markaas uu go'aansaday inuu isna dhaadhaco isaga iyo ciidamo wuxuu watayna uu soo dhaadhacay muslimiinta si aad baa loo cadaadiyay Quds wuxuu go'aansaday markan inuu geeriyoodo wuxuu iska dhigay koofiyadii birta uu sitay dabeetana isagoo aan waxba xidhnayn buu dagaalka galay wuxuu galay isagoo qaylinaya oo weedha ah taariikhda caanka ku ah waa islaamaha isagoo la buu galay yani waa islaamaha waa tallaa islaamkii isagoo leh ayuu dagaalka soo galay raggii dagaalamayay markay arkeen qaa'idkoodii ugu dambeeyay boqorkii oo dagaalka ku jira waan koofiyad dagaal xidhnayn oo dagaalkiina adag yahay waxa spirit ruux baa dib u gashay macnawiya oo dagaalkii dib bay u xoojiyeen waa iska dhiciyeen maymanadii soo riixaysay dib bay isaga dhiciyeen Quds markuu dagaalka bilaabayba ninbaa waran la egtay fallaadh la egtay oo faraskiisa la dilay isagoo bilaa faras u dagaalka galay أحد القواد المسلمين بقى وجدها دقي فرسكيسي ولا يا أمير المسلمين فول كان وحكيري حوجاجا أما نفع جاجا مسلمين تكاكرن ما يفوشنو أنا وسام بقى كنت قال لي أيه إيشوا عن فرس وطن وكوفية دي برتاهيت سيدن أيو دقال كقال كدي بالا لسه قاري فرده رسالة كها قار كميدا إيشوا ولي دقال كوتشرة والله canaantay markii dambe waxa la yiri muslimiinta waa jabin gaadhay hadda adiga lagu dili lahaado bila faras oo bila waxba hadda dagaalka iska soo gasho si kasta lagu dilayay muslimka jabin lahay wuxuu ugu jawaabay anigu haddaan dhintana jannaan geli lahaa islaamkuna rabbi aan dayacayn buu leeyahay aniga ii dayacmi maayo imisa fulaan iyo fulaan iyo fulaan geeriyooday buu yidhi aniga hortay oo qaa'idiin muslimiin oo la yaqaanay ilaahay baa le kan oo ilaashanaya dagaalkii marka kan uu isbedelay muslimiintii waa iska soo celiyeen maymanadii waa la soo kaceen xad baa la isla soo gaadhay katbuqa la isla yimaado ciidamadii weerarka waday waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo jamaaludiin aquush ashamsiy jamaaludiin aquush waa raggii iskaga soo hadhay naasir yuusuf markuu dagaalami waayey dimashq iskaga soo baxay ee ciidamada u ahaan jiray oo ku soo biiray Quds iyo ciidankiisa jamaaludiin aquush ayaa katabqa madaxa ka gooyey katbuqa isagoo u haysta dee waaxid ka mid ah tataarka aan ogeynba inuu yahay ninkii meesha watay ayuu kow kaga siiyey sinaariyogii dagaalku markaa uu isbedelay waxay u muuqatay inay jabayaan laakiin marka kan meel ay ka baxaan ma jirto waa inay ama isdhiibaan ama madhaan hadday isdhiibaanna in la laynayo way garanayaan waxay go'aansadeen inay waddo furtaan xoog bay u dagaalameen dariiqii waqooyiga ee meesha ka bannaanayd bay furteen dabeetana way ka baxeen waa yaaceen meel 20 kilomitir u jirta aynu jaluto beesan la yiraahdo bay degeen muslimiintii waa ka daba timi Quds wuxuu rumaysan yahay meeshan ama muslim dambe in la waayo ama tataar dambe la waayo oo ka daba yimi biisan baa la isugu yimi haddana mu'arrikhiintu waxay dhahaan dagaalkii hore ka kulul baa ka dhacay waxaanay ku dhawaatay mar labaad in muslimka lala soo kaco والله يتحامل لكن ما دام يدد بدنا مخلصين كجرنا هي درتينا ودقالم يعني له وصغي مر لباد بيكين ستيبا لا يدا قطس isagoo waa islaamaale inuu goobta galo iyadoo la soo kici gaadhay ayuu haddana dib goobta u galay muslimiintii markay arkeen madaxdoodii iyo dagaalka frontka kaga jirta waa adkaysteen iyana Quds waxa la yiraahdaa maalintaasi wuxuu ku ducaynayay
يا الله انصر عبدك قطز على التتار إلهي وأضم كان قدس وهيلي إلهينا سبحانه وتعالى وهيلي عيدا أنا فرط السندود لسوتش من أي عن بكرة أبيهم لترترى جيش التتار إيميش مريي ولا مريي مسلمين تنوى قوليسته مرقى سقوط السجود سقوا وجهك دولك كحقية وإلهي سبحانه وتعالى وما هدع علينا دمشق بقول يكون كيلومتر بيوجرتاه قطس waxa ka go'aana shaam inuu ka saaro dabeetana intuu ciidamadiisii iyo dadkii dhaawacmay iyo waxaan meydka aasanaya urursanayay ayuu waraaq u diray reer dimashq uu leeyahay bidin ilaahi waan soo socdaa gaaladiina waa soo jabiyay magaaladii markay maqleen gaalkii baa la jabiyay dib u baabay soo abaabuleen xaamiyadii meesha joogtay shacabka ku filaaday iyana dimashq bay xoreysteen soddonkii ramadaan buu soo galay dimashq oo dib u xora oo shacabkii caadiga ah uu xoreystay oo kuwii madaxda u ahaa uu tataarku meesha kaga tagay laayay oo qaar xidhxidhay oo meesha oo dhan waa firdhadeen gaaladiina sida kagamu hadhine qaa'idkiisii muhimka ahaa bibrus buu ka daba biiray wuxuu u daba diray inuu shaam oo dhan xoreeyo qaadi dimashq ibnu turki la odhan jiray way casileen najmudiin abubakar nin la yidhaahna qaadaa laga dhigay muslimiintii waxay ciideen ciid alfitri ah farax iyo guulla ah ayay dimashq ku ciideen fibrus ciidankii wuu waday magaaladii xalab buu galay xalab xaamiyadii tataarkii joogtayna cagtuu mariyey dhowr toddobaad gudahood ayaa shaam oo dhan lagaga saaray nimanka tataar la yidhaahdo say u dhammaayeen waxaa markaa gacanta muslimiinta ku jirta libiya dacalkeeda ilaa iyo shaam oo dhan ayay muslimiintu qabsadeen labadii waddanna waa la isku daray si aan fitnadii hunguridoonka ahayd u soo noqonin fibrus waa nin siyaasiyana ah umaradii isaga la soo dagaal gashay iyo kuwii ka hor yimi qaar ka mid ah kuwii ka hor yimi qaarkooda uu arkayay inaanay faa'iido lahayn hala dila buu yidhi wuu dilay qaar ka midana kii saarimudiin aybak la socday ee ashraf ilayubiya yidhi waa kuu jabaya iyo kaa wuxuu yidhi ximistaadii dib maamulo uga noqo mid calaadiin la yidhaahdo ibnu bader ibnu lu'lu ii haysan jiray muusil ee la'iimka aynu ka soo warrannay inankiisii kaana xalab buu u dhiibay xamaana iyada ninkii isaga la dagaal galee mansuur ayuu sideeda ugu celiyey oo isagu raggii jihaadka ka qayb galay buu ahaa katbuqa ninkii dilay jamaaladdiin aquush saaxilu falastiin iyo ghaza buu u dhiibay dimashq calamaddiin sanjar waa nin ka mid ah quwaaddii waaweynaaye mamaaligta ayuu isagana u dhiibay 26 shuwaal waa bil kadib caynu jaaluud ayuu dib u guuray oo ku noqday masar tataarka dagaalkiisii koowaad ee la jabiyo ee dhulkan ka dhaca caynu jaaluud waxay noqotay meeshii ugu dambaysay tataar xoog leh uu ka soo dagaal geli karo qutusna kursigiisii iyo waxoo dhan wuxuu siistay inay muslimiintu guulaysato waayo guushan markii la gaadhayba raggii ay ishayeen ee dib loo noqday dibba u shakiyeeno isagu masar ma gaadhin meel dhexaa lagu dilay qutus 11 bilood iyo maalmo buu madax ahaa fibrus baa qabsaday dowladnimadii islaamiga ahayd isagaa 17 sannadood oo dambe xukumayey guulo waaweyn oo islaamiyana markii dambe soo hooyey
maxaa ka dhashay raadka ka dhashay muxuu noqday raadka ka dhashay wuxuu noqday kow muslimiintu inay bartaan rabbigooda inay ku noqdaan ilaahay hadday ku noqdaan ilaahay uu heelinayo laba waxaa ka kacay dullinimadii nafsiga ahayd ay moodayeen dii tataarka la arkay in la jabayo ama tataarku dad xadiid ka samaysan oo aan la jabin karin inay yihiin waxaa soo noqotay haybadii dadka muslimiinta ah hoolaakoo dib uma awoodin waxoogaa yara uu mar xalab u soo diro weerar ku soo qaadqaaday ma inuu soo hungureeyo inuu xaggan dib ugu soo noqdo ciidamadii tataarka ee shaam iyo turkiya iyo falastiin joogay waa la tirtiray 146 sannadood tataar dib uguma soo noqonin tataar soo noqda waxaa ugu horreeyey 804 kii imtixaanka ahaa ee taymuur link la odhan jiray islaamka sheeganayay markuu dib u soo noqday baa ugu horreysay 146 sannadood kadib caynu jaaluud waxay kaloo noqotay shahaadadii markhaatiga u noqotay dowlad ilmamaalik inay rag talin karo oo dowladda yihiin oo muslimiinta difaaci kara aasaarta ka dhalatay waxaa ka mid ah maadaama dimashq iyo baqdaad iyo qurtababa ay dumeen qurtabana 636 bay soo duntay 20 sano ka hor baqdaad qaahira waxay noqotay caasimadda cusub ee muslimiinta waa meeshay ka bilaabantay dunyahay maanta tay taariikhda qaahire ugu fiican waxay bilaabantay marka kan waxa dhamaaday dawrkii ay lahaayeen nimankii ayuubiyiinta shaam isku ereeriyan jiray oo dhan waxay bilaabeen mamaaligtu inay xoreeyaan kadib dawladihii raay kristanka meesha ku taxana ee hore ay ugu taag waayeen cimaadadiin zanki iyo nuuraddiin maxmuud iyo salaaxaddiin ayuub iyo dawladahay u taag waayeen 664 qaysariya magaalada la yidhaahdo iyo xeefa ayay xoreeyeen 665 saft iyo qolayqira fi turkiya ayay xoreeyeen oo waxa la yidhaahdaa 40 kun oo askari ciidan ku dhadhow haytham kii armaniga ahaa boqorkii la socday hoolaako ee baqdaad wax ka galay waa meeshiisii waxay ka soo qabteen qaniimada bay yidhaahdeen ninkaa meeshiisa laga soo helay ilaa muslim oo dhan buu soo dhacaye ciidanka qaniimada markii loo qaybinayay looma miisaamina waa loo weel daray baa la yidhaahdaa yacni nin walba masaftu waxay qaadaa loogu riday xooluhu sitay ay ka marka dambe laga qabtay 666 wuxuu bebros dib u furtay yaafa meeshan la yidhaahdo 667 imaaradii kristanka ugu horreysay ee caalamulislaam ay ka furtaan buu dib u xoreeyay antakiya meeshan la yidhahdo turkiga kaga tirsan waa bohmond isna waa kuwii baqdaad wax ka gubay buu ka mid yahay bebros markuu dhimanayay mudunkii hareeraha ku tirsanee dawladaha yararee masiixiga kama hadhsanayn ilaa iyo caka iyo suuriya sayd iyo طarablus iyo bayruut baa ka hadhsanaa kuwaana shaamna ama masarna waxaan u jeedaa suuriyana tarsus iyo laadaqiya ayaa kaga hadhsanaa 684 ayaa طarablusna almansuur qalawuun oo isna ka mida mamaaligtaa furtay 690 ayaa inankiisii alashraf khaliil ibnu qalawuun isna wuxuu furtay wixii imaarad hadhsanayd yacni 32 sano caynu jaaluud kadib imaarad masiixiya kama jirin shaam wixii dawlad yar ka tirsanaay oo dhan way ka takhalluseen intan waxaa ka weynoo u baahnaa inaan si dhaba uga warramo laakiin maadaama muxaadaraadkani dheeraada inaan dul marayo kuwan aan ka warramay waa jeeshkii muslimiinta ee ciidanka ahaa ciidan kale ay muslimiintu leeyihiin oo kuwa ka xoog badan ciidan la yidhaahdo ducaad oo iyagu quluubta dadka furta aan dhulka furanin taariikhda dunidana dib u bedela marka laga reebo shaam iyo masar intii kale tataar baa haystay goorma islaamka ku soo noqdeen waxay ku soo noqdeen iyagana rag baa u xidhxidhay quluubta reer jankis khan inay furtaan oo ay dawlado islaamiya ka dhigaan waxaa bilaabmay
Genghis Khan wiilashiisii inta badan dagaaladay ku dhinteen waxa kan kuwa awowga u ahaaba islaamku ku bilaabmay markaa waxa islaamay Barka Khan baatuu la walaalayay ninkii Yurub furtay abihii waa odagii Raashiya furtay Jiji la odhan jiray Jiji wayna Genghis Khan baata iyo Barka walaala ah oo ilmo Jijiya Barka wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay islaama sida taariikhyahanada badqabaan waayo taariikhyahanada badkala waxay qabaan Barka wuxuu ka tirsan yahay aalusi dahabi yani markuu dhimanayay Genghis Khan wadanadii xukumayo dhan wuxuu u qaybiyay afartii inay ugu waaweynaayo u dhalay marka aalusa dahabi Raashiya iyo waxa ku xeeran ee ka hooseeyo oo dhan waxa la siiyay Batu inuu xukumo Batu markuu dhintayna akhiran waxa qabsaday Barka Khan waa ninkan ku leeyahay waa nin muslim oo noqday oo al-Imam al-Bakharzi sheekh la oran jiray waa sheekh muhadditha Imam Zahabi wuxuu leeyahay rajul muhadditha oo zaahida oo athariya oo caalima buha mararka qaarkood laakiin suufinimana wuu qabay oo simaacan xatradana waa yara dhageysan jiray salaatu tasaabiixna jamac buu ku tukan jiray bay yiraahdaan laakiin waxaa nin caalimo laga haybaysto ragga iyo ragay ka mid yihiin ayaa dad badan quluuftooda Ilaahay ku furay iyagu markaa alqabiila dahabiya bay ahaayeen Barka Khan markuu muddo waday isaga waqtigiisii dadku ma wada islaamin laakiin 50 sano kadib dawlad islaamiya weyn bay noqotay qabiilka labaad waa Jagtai waa ninkii ugu adkaa ee uu dhalay Genghis Khan ee madhabkii al-Yaasiq fulinayay oo muslimkana la colaha qoysaskiisana qayb ka mid ay kristanka ku xidhnaayeen aad buu muslimka col laha waqtigiisii wuxuu mamnuucay xoolaha in la gowraco halka laga dalooliyo buu yiri muslimkana waqtiga cunaysa buu ku xukumay wuxuu mamnuucay waqtigiisii in wabiyada laga weysaysto iyo dhulkaasi oo dhan buu ka mamnuucay nin aad wax ma ku ahaa uu dhintay isaga qoyskiisii waxa dhaxlay Mubarak Shah daa'irat al-ma'arif iyadu waxay sheeganaysaa inuu yahay ninkii uu hor islaamay oo qoyskan kamid ah waxaan filayaa 644 meelaha maya 664 inuu qabsaday isaguna madaxnimada meesha yaa kamid ah islaamay Holako waa ninkii Baghdad dumiyay in ka waranay inankiisii Ahmed Takwadar baa islaamay oo qabsaday meeshii kadib inan uu adeeruyay oo kristana ku kacay 2 sano markuu xukumayay baa la dilay qolo kala qabsatay laakiin waqti yar kadib haddana kii isaga ku kacsanaa inan uu dhalay abaga inan uu dhalay waa Ghazan ibn Arqon ibn Abaqa ibn Holako ayaa islaamay walaalkii baa isna islaamay oo ligato la oran jiray iyana Persia dib ay islaamka ugu noqotay markan taariikhda dib ugu noqdo waxaan uga jeedaa inaan idin tilmaamo jeeshkan wax jabiyay jeesh aan ahayn oo kale ayaa iyana qulubi naas furtay oo inta badan dawladihii bariga xigee dambe aynu soo dhaafnay ciidan laguma furanin ee waxa lagu furtay maxay sabiil dacwa ayaa lagu furtay dabeetana dib bay u soo noqdeen dawladda muslimiina waxaan jeclahay markaa inaan soo koobo waqtiga dheeraaday waa dad badan oo muslimiina oo xataa dawladda u shaqeeyay qaar muslimiinta wax taray iyo qaar dhibaba way lahaayeen مثلا محمود يلواجي ninka la oran jiro kale Okday oo ah ina Genghis Khan oo boqortooyada qabtay ayaa wasiir ka dhigay dabeetana wixii magaalo muslimiin la dumiyo dhan isaga dib u dhisay Bukhara iyo Samarqanda iyo Khawarizm iyo Khajanda iyo magaalooyinka waaweyn ee muslimiinta oo dhan Mahmoud Yalwaz oo wasiir u ah dawladdaasi baa dib u dhisay muslimiintuna ay aad uga mahad sheeganayeen waxa kamid ah
صدحنا أنا وسيد علي مسعود الأول مسعود الثاني مسعود الرابع إلا لقى قاريي ويجونا دب مسلمين توحوا الطري عكس جودنا واجري غرب رقا طيالة حبش عميديو قبل فاطمة لورنجريو ميد وزيرها عبد الرحمن لورنجريو كوح كله وبرقا طيالة سيب قماضي مسلمين تنواجران لكن وحنا قد شهدون أما هذا ما مولدي ماشي كتشري ضد مسلمين في عنا كصابحي أما هالنقطان علماء مسلمين تماشي كوهردي مثلا الشيخ باخرزي شيء جيا شيخ سيسقي ينكلا سعد الدين باخرزي ينكلا أبو صور الدري وأنا من صوفيا الطريقة دي ولا صادري يسقى وحل أمري ما وراء النهر نتجو بخارو صاق لا يوم وحنا اللي بتشوقين كاسيس كدول دقي حرب كدول سمية مسلمين تقدموا قصور نغطي إلى إيو أي مقالات يدبوا عمرانتي وهدنا خراب إن الله يرادو وذات صوفيا باسنا هدنا دبوا سمية ثورة حقاية وذات كلنا كحيستين دبتنا وحد الروحانية وحباي للصعود وين الدجال قلينا ضد بدن بالدجال قليه تطار كي باب بقيبه يصير وارد ملاكن روحان ثانية وحنا الشجرية دجال كي مركو دعي كوحدي هروا بيلك عن فلاحين تيو فاشش كوديو وحده بكوتشيران لكن ده مركو دجال نقضي باللواي الروحان تينا دبتنا فلاحين تي مسلمين تهيد بالدبلوب وماذا مقالة دي بالله طمعين دبلوب بابيو محمود يلواج يا بغرطوية دبو عرري وجكتاي كان رباين وماشي بابيو ومر لباد بدبادي يعني وحنو قلت هذا رجي إداريين تي الدولة داكو بيريدت بدن وكم مدينة مدارس إسلامي قايد سكولات إسلامي قايد مقالو إنك إسلامي قايد وحي مسلمين تدبوا يسوي عليين رجي علماء داهانا قلوب تدتي مهاجمين تهيد بفرتان لا تاريخية هندو إلى هذا لما أرق ومدلة شبيي وكي شبيي ودين تي هذا قاط تاريخ ده وحلا يقانا ومدلة شبيي وقاطة محي نيكا وح شبيي ده دين تيسا لكن ومد لشبيي وكي شبيي كحق بطي هدنا وياك الدين تو هذا قاطنا يو درس كان وردن أما الدرس كان سيدا وتغانين دان تنكلها هل وحبيهي أو تاريخ ما أنت ما يبلا من هدي ما أنت مسلم شبي وأيه الله شبي بحشرته هدي ما أنت دقات شودين تاريخ اليوم كم ورمي كره مصر وقت دك اللي عني شرا شرته قاش درادين عصر أنا هذا كشكريه بقول سنة كهر مصر دك اللي عني شري حتى دخاطيرته دكتور رادو وحي خطر قالن دكتور بالورنا يا كالي دد سو دوي شو سغال الربابه ان لا بريو ولا غورعان جيرو markuu guriga soo galo xadka say gaadhay haday gaajatay haday baahitay haday dagaaltay haday colaad tahay wax ka fool xun baa soo maray laakiin intaba dad baa ilaahay gacantooda dib ugu nooleeyay laakiin waa markay qaateen maxay asbaabta saxda ah قطس وحين صامر أسبابته أمري إنه قوليسته أين صوت المامة شيكو وجمال شيديب وحنا قلت شيدا إن ضدك مسلمين تأيدب وقع برقاتان وحن صامر يدل بدنا مسلمين عن المامي والدعوة الغفرتي حق بلغ مفرنين كي واحد ميوت شوقة أي شيء الدين تلغو دري سنوات بيقادتي إنay dib dawlada islaamiga u noqdaan marka waxaan idin sheegayaa طريق وفرن yahay si fiican u qaada sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin